Barnaamijkani marnaba ma dhiirigelinayo jacaylka guurka ka hor. Ma ila aragteen dadka qaarkood oo ku doodaya jacaylka dhabtay waxa uu soo maraa qofka hal mar balse mar labaad ma soo maro. Ma ila aragteen sidoo kale dad fara badan oo ay lamaanihi ay hore isku qabeen wiil iyo gabadhba uu ka horgeeriyooday deetana qofkii labaad ay iscalfadeen oo hadii goor ugu cataabayo uguna celcelinayo ninkii hore ayaa kaa fiicnaa ama gabadhii hore ayaa kaa fiicnayd. Arrintaas saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa jacaylka dambe. Ma laga yaabaa inay noqoto dulmi laga galay jacaylka cusub ee hadda lagu sugan yahay si nolosha qoyska ee dadka dambe iskuulsay isku cataabaya saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa. Macquul ma tahay in qofku ku sii dheganaado oo uu sii xasuusnaado qofkii ay hore isku soo jeclaadeen. Waa maxay sababaha ku kalifay in qofku sii xasuusnaado qofkii ay hore isku soo jeclaadeen. Tee ayaa qofka u wanaagsan ma inuu guursado qof isaga jecel mise inuu guursado qofku isagu jecel yahay. Bal ka waran haddii uu qofku guursado qof aanu jeclayn sidee ay tahay inuu la macaamilaado si ay habsami socodka nolosha qoyska u sii waarto. Haddii uu qofku jacayl koobaad soo maray balse imika uu ku sugan yahay jacayl labaad sidee ay tahay inuu qofku u macaamiloodo marka la barbar dhigo jacaylkan labaad jacaylkiisii koobaad. Mudanayaal iyo marweyn waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aqoonta jacaylka kaasoo aad ka heli doontaan dhammaan jawaabaha su'aalaha aynu kor ku soo xusnay. Bismillah walxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam. Maanta waxaynu ka hadli doonaa jacaylkii koobaad qofkii tusaale ahaan qof hore usoo jeclaaday saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa jacaylada dambe ee uu yeelan doono. Haddii uu ninku gabadh hore usoo jeclaado dabeetana ay soo food saarato xaalad adduun oo ah furiin amaba geeri deetana ninkaasu gabadh labaad guursado deetana gabadhaasu ay tahay gabadh ka tilmaamo iyo dabeecad wanaagsan gabadhii hore waxaa macquul ah in uu ninkaasu gabadhan dambe jeclaan doono in ka badan intii uu jeclaaday gabadhii hore. Sidaas la mid ah haddii ay gabadhu guursato nin deetana ninka ay kala tagaan amaba si uu ka geeriyoodo sidoo kalena ay guursato nin kale oo ka wanaagsan ninkii hore habdhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan intaba waxaa iyaduna macquul ah inay gabadhaasu ninkan dambe ay u jeclaato in ka badan intii ay jecleed ninkii hore. Sidaa daraaddeed waa iska hadal ay bulshadu isla dhex marto amaba hadal aan waxba ka jirin in la yiraahdo jacaylka la sheegaaba oo jacaylka koobaad jacaylka dhabtii qofka wuxuu soo maraa mar kaliya iyo wax la mid ah waxa soo hadalay waxba kama jiraan waxa ay ku xidhan tahay in jacaylku kabigiisaba qofka shakhsiyadiisa noocay tahay iyo qofka labaad sida uu qanciyo siduu baahiyihiisa u asturo siduu u kafeeyo baahiyihiisa siduu ugu tanaasulo waxyaabaha dhibka ay keensadeen toban. Sidaa daraaddeed waa khalad weeyaan in hadii goor haddii ay gabadhu guursato nin labaad ay hadii goor ku xilxilso ninkii hore ayaa kaa fiicnaa waayo waxay caqabad ku noqonaysaa jacaylkeedan cusub sidoo kalena nolosheedan qoyska ay gashay caqabad ayaa ay ku noqonaysaa. Sidaas la mid ah waa khalad inuu ninku gabadhan labaad ee uu guursaday uu hadii goor ku xilxiliyo oo yiraahdo gabadhii hore ayaa kaa fiicnay waayo habsami socodkii nolosha qoyska ee hadda ayuu khalkhalinaya. Haddaba waa macquul inuu qofku uu hadii goor ku sii dheganaado siina jeclaado qof ay hore isku soo jeclaadeen balse waxaynu isweydiinaynaa sababaha kalifay inuu qofku hadii goor ku sii dheganaado qofka ay hore isku soo jeclaadeen waayo sababta haddii aynu ogaano waxaa laga yaabaa oo inoo fududaanaysa inaynu xalka si fudud u gaari karno. Sababaha ugu muhiimsan ee kalifay inuu qofku hadii goor ku sii dheganaado qofkii hore ay hore isku soo jeclaadeen waxaa ugu muhiimsan 4 sababood way badan yihiin sababuhu. Sababta koowaad waxa weeyaan waxaa laga yaabaa wiilkan inuu gabadhan inay wiilkan soo jeclaatay xilliyadii ay ku jirtay labaataniyada iyo markii ay ka yaray deetana waxaa laga yaabaa jacaylkoodu nooca jacayl ee ay lahayd ama uu lahaa inuu ahaa nooca romantic ah ee ku salaysan habmuuqaalka jirka deetana taasuna ay sabab u noqotay inuu qofkaasi kusii dheganaado habmuuqaalkii uu qofkaasi lahaan jiray taasuna ay ku abuurtay inuu qofka uu qalbigiisa wax ugu sii hayo in yaroo jacayl ama in badan oo jacayl hadii goorna ku xilciliyo gabadhii hore gabadh fiican ay ahayd amaba ma hadii goor ay ku xilciliso ninkii hore in badan ayuu fiicnay kale ma jirtay waxa laga yaabaa in nooceeda jacayl oo ahaa nooca habmuuqaalkii qofka kalena uu qanciyay wiil iyo gabadhba in ay ku sii dheganaato amaba uu ku sii dheganaado. Sababta labaad ee kaliftay in uu qofku ku sii dheganaado jacaylkii hore waxa laga yaabaa iyaduna inay tahay labadan qof oo aan lagu soo barbaarin mid ka mid ah jacayl waalidnimo. Tusaale haddaynu xagga gabadha ka eegno waxa laga yaabaa inaanay gabadhu helin jacayl aabanimo deetana ay markii dambe taas ku kaliftay inay jeclaato macallinkii wax u dhigay. Sababtan wax kale ma aha wax kale uma jeclaan. Laba sababood sababta koowaad waxa weeye baahidii jacayl ee waalidnimo meesha ka maqan iyo sababta labaad oo ah inay jeclaatay wax la yiraahdo jacayl waake kaasoo ah sida uu wax u dhigay ayaa wanaagsan ama ma dabeecadiisa ayaa wanaagsan ama ma waxa laga yaabaa inay gabadhii filmaan iyo musalsalaad iyo waxa soo daawatay deetana ay halka kaliya tahay si jacaylka noocan ku matali kartaa ay noqotay in ay macallinkeeda ay ka dhex bilowdo arrin jacayl deetana ay aaminto in ay macallinkaas soo jeclaatay hadhowna jacaylkaas noqdo mid ku kaydsamay maskaxdeeda oo haddii jacayl rasmi ah hadhow yimaado oo hadii goor ay caqabad ku noqoto jacaylka hore ee ahaa jacayl weeka. Sababta saddexaad ee kalifi karta inuu qofku uu hadii goor ku sii dheganaado qofka ay hore isku soo jeclaadeen waxa weeyaan waxa laga yaabaa labadan qof in uu jacaylka uu soo dhex maray oo ahaa jacaylkii ku salaysnaa marxaladii koowaad ee ahayd ka helitaanka deetana uu qofkan kale uu ka arkay inta wanaagyadiisa ahun deetana iyadoo lagu jiro marxaladda labada qof ay wanaagyadooda istusaan
inay kala hadheen ama ay wax kale soo kala dhex galeen taasina ay kaliftay inuu hadii goor qofkan uu qofka kale uu sii xasuusnaado in badan wanaagidiisana uu niyadda ku hayo waayo wax xumaana ilaa hadda kama waran sababta afraad ee iyaduna kaliftay in uu qofku hadii goor qofkii hore uu ku sii hayo qalbiga siina jeclaada waxa weeye waxa laga yaabaa qofkan markii uu dhalinyarada ahaa inay firaaqadiisu badnayd tusaalahaan waxa laga yaabaa inuu ahaa arday jaamacadeed oo takhasusku dhigan jiray ama takhasuska dhigan jirtayna uu ahaa takhasus aan dadaal badan u baahnayn marka ardayda tusaalahaan barata takhasuska u badan dadaalka badan sida medicinka ama caafimaadka oo kale hadii goor waqtigooda ugu badan waxay ku qaataan wax akhris iyo inay buugaag waaweyn iyo qalimaan iyo waraaqaystiba sidaan chance uma helaan xilli hasaawo iyo xilli jacayl balse qofka barta waxyaabaha takhasusaadka aan waqtiga badan u baahnayn ee muddadeeduna gaaban tahay sida takhasusaadka la xiriira arrimaha bulshada sida xisaabaadka dhaqaalaha iyo waxa la midka waxa laga yaabaa qofkaas inuu helo firaaqo badan dhalinyaradu isku mid maaha dhalinyarta qaarkood baa laga yaabaa inay firaaqada ku buuxiyaan inay galaan sheeko jacayl hasaawe iyo in la kulmo 24 saacadood deetana qofkaasu waxa laga yaabaa inuu la kulmay gabadh ninkaas inuu la kulmay gabadh ama gabadhaas inuu la kulantay nin xilli ay firaaqo badan hayeen deetana ay kala hadheen deetana hadhow markii ay labada qof ay shaqo heleen ay mashquulkooda u batay gabadhan labaad markii uu guursaday ninka ama gabadhan markii uu nin kale guursaday in ay labadii qofba niyadda ku sii hayaan dadkii ay hore isku soo jeclaadeen xilligii ay firaaqada hayeen oo deetana iska dhaadhiciyaan in jacaylkan imika uu ka fiicnaa jacaylkii hore waayo jacaylkan iminku waxa uu kulagula tartamayaa mashquulkaaga iyo shaqadaada iyo hawshan aad ku jirto marka isbarbardhiga khaldanaya isbarbardhigan xilligan qofka mashquulay iyo xilligii firaaqada hayay ayaa waxay sababtaa inuu hadii goor qofku ku sii dhiganaado qofkii hore tanuna waxa weeyaan waa dulmi laga galay jacaylka dambe sababta shanaad iyaduna kalifi karta inuu qofku hadii goor ku sii dhiganaado qofkii hore waxa weeyaan waxa laga yaabaa in labada qof ay isku fiicnaayeen balse ay soo kala dhex gashay duruuf adag oo kaliftay in labada qof ay kala hadhaan tusaale ahaan inantii baa ninka loo guuriyay oo lagu khasbay waalidkad ku khasbeen ama maya inankii baa gabadh kale guursaday oo gobol kale ayuu tegay oo waqti badan ayaana wada qaaday taasoo kale waxa ay abuurtaa hadii goor labada qofi in ay niyadda isku sii hayaan dabeetana noloshan dambe ay gelayaan iyo jacaylka dambe iyo noloshan qoyska dambe ay yeegleeleen waxa laga yaabaa inaan micno badan u sameeynin oo qof walba qofkii ka horeeyay ay waqtiga badan wada qaateen ay niyadda ku sii hayaan weli waxaynu ku guda jirnaa jacaylkii koobaad ee qofka soo maray iyo saameynta ay ku yeelan karto jacaylada dambe ee uu soo mari doono halkan waxaynu isweydiinaynaa su-aasha ah ma inuu guursado qof isaga jecel mise in uu guursado qof isagu jecel yahay wiil iyo gabadhba waxaa laga yaabaa dad fara badan tusaale ahaan rag oo kale inay ku jawaabaan anigu waxaan doonaya inuu guursado gabadh jecel waayo gabadha haddii ay jeceshahay waxa ay dareeraysaa gurigeeda horeygama tegayso wax la mida waxaad moodaa markaa bulshada Soomaaliyeed qoysaskooda inay ku saleysan yihiin baqdin ah in ay mustaqbalka kala tagi doonaan dumarkuna waxa laga yaabaa inay yiraahdaan waxaan doonayaa inuu guursado inaan jecelahay waayo ninkaas ma ahmid aniga iga dhaqaaqi doona gabadh kale isha qac ku siin maayo iyo wax la mida marka bulshooyinkeena Soomaaliyeed badankoodu wiilkii gabadha isguursanaya kuma dadaalaan sida iyagu isku raali gelin lahaayeen waxay awood saaraan oo kaliya ta un maxay inay ka warwaraan ninku ka tagi doona gabadh way ka tagi doontaa iyo wax la mid marka jawaabtaas waa jawaab khaldan jawaabta sax waxa weeyaan qofka ay ku xiran tahay hadii qofka wax soo saarkiisu yahay wax soo saar aad u sareeyo mashquulkiisu badan yahay oo hadii goor ku mashquulsan yahay waxyaabo la xiriira nolosha iyo hawlaheeda waaweyn qofkaas kale waxa loo gudboon inuu guursado qof isaga jecel waayo qofka isaga jecel wuxuu noqonayaa qof isaga daryeela oo dabagal balse qofka habdhiskiisa nafsiyeed hadii ay tahay mid ah nooca romantic ah ama nooca ah in qofku hadii goor jacaylkiisa uu helo meelo ku cabiro meelo lagu cabiro qofkaas kale waxa la gudboon in uu guursado cid uu isagu jecel yahay marka jawaabtu waxay ku kala duwanaanaysaa xaaladda labada qof wiilba waxa laga yaabaa inuu guursado gabadh aan jecelayn ama gabadhba waxa laga yaabaa inuu guursado nin aan jecelayn marka kale maxaa la gudboon waxa la gudboon inay awood saaraan labaduba wanaagga qofka kale sida akhlaaqiyadkiisa dhaqankiisa wanaagsan hawlkarnimadiisa iyo waxa la mid ah tan marka waxay ka qayb qaadanaysaa in labadan qof ay si tartiib isku soo jeclaadaan ilaa ay gaaraan heer jacaylkoodu gaaro halka uu sareyso haddaba su-aasha isweydiinta waxa weeyaan waa su-aasha xalqadan dhexda oo ah sidee ayaa ay tahay in loola macaamilo jacaylkii koobaad tusaale ahaan waxaa laga yaabaa nin inuu soo jeclaaday gabadh hore ama gabadh baa laga yaabaa inay soo jeclaaday nin hore uu ka xumaaday balse qofkan hadii goor qofkii hore ayuu xasuusan yahay oo niyadda ku haya deetana waxa uu caqabadaynaya jacaylkan cusub marka sidee ay tahay qofku in uu la macaamiloodo jacaylkii hore iyo jacaylkan iminka taagan labadaba ugu horeyn inta inaan jawaabta gelin waxaan ka horeysiin lahaa tala ah dhammaan dhalinyarada rag iyo dumarba waxaa la gudboon inta aanay guursanin ka hor inay qalbigooda ka ilaaliyaan wax jacayl waayo qalbigeenu waa daciif waxa laga yaabaa in noloshu nimika isbedesho sidii hore maaha in ay rag ka daneystaan haweenkii dumarkuna ay ka daneystaan raggii deetana hadhow ma kala tago uu qalbigoodu si yar oo fudud u jabo marka qof walba waa muhiim inuu qalbigiisa ilaashado inuu dareenkiisa xakameyn karo maaha qofku inuu adoon u noqdo jacaylka balse waa inuu jacaylka laftiisu qofka adoon u noqdo tanna waxay ku imanaysaa inuu qofku maro saddexdii marxaladood ee lagu xakameeyay jacaylka marxaladda geerista marxaladda isqiimeynta iyo marxaladda la qabsiga
waxaa laga yaabaa rag fara badan iyo dumar fara badaniba inay ku doodaan waa maxay ninkaagan adag romantic matiida ka hor isfurfur caadi iska dhig, balse xaqiiqadan kuu sheegaya waxa weeyaan guurka ka hor ma habboona in labada qof ay aada isugu talax tagaan, waayo mid ka mid ah ayaa ka tegi kara deetana qofkan kale waxaa laga yaabaa inuu murugo iyo kaga taga xasuus, waana sababta keentay hadii goor qofku inuu jacaylkii koowaad kusii dhegana. marka wuxuu ka badbaadayaa qofku jacayl dambe haddii ay isjeclaadaan ama jacaylkii dhabtaha markuu yimaado in aan jacaylkiisa caqabadi ka hor iman. haddii aynu u nimaadno su-aasheenii ahayd sidee ayaa loola macaamiloonaya jacaylkii koowaad, ama jacaylku ha noqdo jacaylkii koowaad ama kan iminka taagan amaba ku barbar socdo jacaylkan iminkaba, jacaylka koowaad isku si unbaa loola dhaqmaya. sida loola dhaqmayana waxa weeyaan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa nin inuu gabadh hore usoo jeclaaday deetana gabadh labaad buu guursaday, hadii goor waxa uu niyadda ku hayaa gabadhii hore. marka ninkan oo kale waxaa la gudboon halkii wax ka khaldan yihiin waxa weeyaan gabadhii hore unbuu mar walba xasuusan yahay in uu gabadhaa kale isku dayo inaanu mar walba xasuusnaan, waayo qalbigeena marka la eegayo booskiisu waa hal boos. marka la eegayo jacaylka uu qofka u hayo, haddii uu qofkaa hore mar walba niyadda ku hayo micnaheedu waxa weeyaan jacaylkan dambe ayuu dulmiyaya oo qalbigiisa waxba ugama hayo, meel boosana ugama hayo. sidaa daraaddeed waxaa muhiima qofkaasi inuu ku dadaalo sidii uu iskaga yareyn lahaa xasuusta qofka kale. sida uu isaga yareynayana waxa weeyaan in uu haddii uu sawiro ka hayo sawirada uu iska gubo, in haddii uu qoraalla ka hayo qoraalada uu iska baabiyo, in haddii ay iska hayaan waxyaabo kale waxoogaa labadooda ka dhexeeya uu iska fogeeyo ilaa intuu bogsanayo, ilaa intuu qofka kale qalbiga ka saarayo, qofkan kalena uu qalbiga soo geliyo deetana uu hantiyo. haddii uu qofku hadiyo goor uu qofkii kale niyadda ku hayo wiil iyo gabadhba waxa uu dulmiyayaa jacaylkan waqti xaadirkan. waxaa laga yaabaa arrintan inay abuurto markaa khilaaf oo ninkuna yidhahdo gabadhii hore kaa fiicneed, gabadhuna ma tirahdo ninkii hore ayaa kaa fiicneed, ninkii hore sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa, ama ninku yidhahdo gabadhii hore sidan bay ahayd sidan bay ahayd sidan bay ahayd. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo khalad ah. waxaa la gudba markaa labada qofba si ay ula macaamiloodaan jacaylkii hore, haddii uu wax wanaagyaal leeyahay inay kaga daydaan wanaagyadii hore ee uu qofkii hore lahaa. haddii uu ahaa qof salaada ku wanaagsan inuu yidhahdo wallahi qofkii hore qof salaada ku wanaagsan buu ahaa, anna waa in aan salaada tukada. balse haddii uu mar walba yidhaahdo qofkii hore ayaa kaa fiicnaa, arrintaas waxay noqonaysaa arrin caqabad ku ah noloshooda qoyska. sidaa daraaddeed waa in qofkii hore wanaagyadii uu ahaa ay ula dhaqmaan inay taageersan yihiin wanaagyadii uu lahaa, balse aanu ku noqon caqabad noloshooda qoyska iyo jacaylkan dambe. waxay ka dhigan tahay oo kale qof aad adigu taageerto sida uu kubadda u ciyaaro oo aad jeceshahay kubaddiisa iyo hab ciyaartiisa, ama me qof si wanaagsan u khudbadeeyo oo aad jeceshahay habka u khudbadeeyo. marka marnaba ha isku dayin inuu jacaylkii hore uu jacaylkan dambe booska ka qabsado, sida oo kalena uu caqabad ku noqdo nolosha qoyska ee cusub. mid ka mid a mashaariicaha iyo howlaha u yaala lamaanaha isqaba waxa weeye haddii mid ka mid a uu soo maray jacayl hore si ay uga badbaadaan dhibka ka dhalan kara jacaylka hore, si xasuusnaanteeda iyo niyad kusii haynteeda waxaa la gudboon lamaanaha inay ka yeeshaan qorshayaasha. markay ka yeelanayaan waxaa laga yaabaa inay ku saleeyaan 3 qodob ee soo socda. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa in jacaylkii hore ee soo maray ay u qaataan inay tahay waayo aragnimo qofeed oo soo martay, oo ay tahay inay wax ka bartaan, inay ka dhigtaan mid ay tahay inay cashar u tahay oo ay noloshooda soo socota ku maareeyaan. qodobka labaad ee ku saleynayaan waxa weeye in ay qofka kale marka soo xasuusanayaan ay u soo xasuustaan hab ah inay wax wanaagsan kaga daydaan. waxa uu la mid yahay jacaylkii hore qofkan soo maray, tusaale ahaan qof aad taageersan tahay oo waxyaabo ku wanaagsan, waxa uu ku wanaagsan yahay waxa laga yaabaa inaad kaga dayatay inta karaankaaga. marka waxaad ka soo qaadaa jacaylkii hore ku soo maray xagad u qaadan lahayd inuu saameeyo ama uu burburiyo nolosha qoyska ee dambe, in aad ka dhigato mid aad ka soo qaato waxyaabihii qofkii hore ku wanaagsanaa wiil iyo gabadhba deetana aad ku maarayso noloshaada. qodobka saddexaad ee lagu saleynaya waxa weeye isaguna in aan jacaylkan dambe booskiisa lagu buuxin jacaylkii hore. qalbigeena marka la eegayo marka jacaylka noqoto waa hal boos, halkaa boos kolba cidii lagu buuxiyin bay noqotaa. marka jacaylkii hore haddii qofku qalbigiisa ku buuxiyo jacaylkan iminka ayaa dibadda u baxaya, deetana qofkan dambe waxa uu dareemayaa dulmi, waxaa laga yaabaa in nolosha qoyska ka dareemo diiqad, deetana taas waxaa laga yaabaa in sabab u noqoto in noloshooda qoysku ay noqoto mid burburta. haddii ay lamaanuhu bartaan sida loola macaamilado jacaylkii hore iyo sida looga barto waxyaabo wanaagsan oo wanaajin kara jacaylkoogan dambe, waxaa fududaanaysa in ay lamaanuhu jacaylkooda u kabcistaan sida ugu fudud. furiinka waxaa laga yaabaa inuu meesha ka baxo, heerka khilaaf waxaa laga yaabaa inuu yaraado, ubadka waxaa laga yaabaa in loo diyaariyo deegaan xasiloon oo nabdoon, kaasoo horseeda inuu garaadkooda kobco, kaalin kastoo nolosha ka galaan say tahay uga soo baxa, deetana horseeda horumarka dalka. ilaahayna waxaa laga yaabaa inuu lamaanaha dhex dhigo kalgacalkii iyo naxariistii qur-aankiisa ku sheegay ee uu ku yidhi aayaddii ay micnaheedu ahayd waxaanu dhexdooda dhignay kalgacal iyo naxariis.
daawade aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashadaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido xog muhiim ah oo la xiriira arrimaha jacaylka oo ku soo biirtay akoonkaaga qaybta aqoonta haddaba si aad u daawato xalqad kale oo ka xiiso badan xalqada aad maanta daawatay ugana faa'iidaysato xog cusub oo la xiriira arrimaha jacaylka waxaad like garaysaa page-ka haddii aad page-ka ka daawatay ama waxaad subscribe garaysaa channel-kan YouTube-ka haddii aad YouTube-ka ka daawato